الصومالي waxay ka ashkatoodaan waxay yiraahdaan dumarka iyagu waxay isqurxiyaan oo ay isdiyaariyaan waa marka aroos la tagayo soo dhab maaha iska qeyrta dumarka idima arkayaan iska qeyrta idima arkayaan gabadhaynu dumarkeen hadii ma sha Allah habeenka aroos jiro dirici ugu dambeeyay dahabka meel Allah leey meel ka keenan garan mayna way iska lulaan dumarku berigii hore waxa la yiri dacas bay sadhici jireen inta ismariyaan baa la yiri bahalkii maxaa loo jiray mayba berigii dambuuyin boorarkii imika gabadhu makiyash bay tagaysaa salon bay tagaysaa timahay soo feedaysaa waysa soo qurxinaysaa caynka gabadhiya xural cayn moodid ayaa ka baxaysa waxay soo noqonaysaa iyadoo daalan diricii iyo dahabkii iyo wixii aad u iibisay ma ayadoo ama ayadoo iibsatayba adugu kulliba horta la tatamatacu bih dadka dabada jooga ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiibkooda si nimba ka sheekeynayay wuxuu yiri gabadhaydii waa la soo hadlay waxaan ku iri caawa wayna la casuumay diyaar garow casuumad ayaa caawa jirta diyaar garow wuxuu yiri gabadhii baan u imi makeup baysa sii marisay way isa sii qurxisay xamuurad bahalkii indhaha maxay xiriba beena oo aad moodid kuwi gorayada in dhabanadii bay casaysay cidiyo beena oo fake ay iska taagtay wuxuu yiri gabadhii oo aad moodid xural cayn baan gurigii imi oo diyaar gabadh markaa waan fadhiisay kabiibaan iska bixiyay way iyara sugtay waxay sugaysaa intan meedmeedanayo waan meedmeeday bajaamahayga iska soo xidhay macaawuseydii waan dhex fadhiisay gurigii war maxaa dhacay bay tiri miyaan baxaynin wuxuu yiri maanta innaka is casuunay innaka ayaa is casuunay oo waxaan u darsaday gabadhaydii quruxda badnayd inaan mar kale arka ayaan jeclaa marka ilaahay ku barakay wad qurux badan tahay sida inoogu joog buu yiri waxa jira ma ka dhabba ha buu yiri oo kaftan maaha kaftan wuxuu yiri inta sidaa tiri ayaa wixii ay dibnaha marisay iyo wixii ay dhabanada marisay iyo wixii indhaha marisay ba sidaa isku dhamboqday buu yiri ifriider ba ka soo baxay buu meeshii ilan colorol buu leeyahay عفريد ير هوي كوب كذب قومي تري مركا وايكن هوي كوب كذب قوم قبل مسلمات ده وحلو جب هنيا إن النين كذا يسوق رحيسه وهدي أيدون يسوق حفلة إن بدلته عينك إن وقت مناسبة أي كبح أي أتماده أي تكتو أو أي كنقطه wadaad kamida ayaa wuxuu yiri gabadh wadaad sheekh macruuf oo la yaqaan halkan mariid ku yimi ayaa wuxuu ka sheekeeyay qoysku caynku u dhaqmi lahaa iyo raxmadda iyo mawadada iyo jacaylka wuxuu yiri marka gabadh ba muhaadaradii bay dhageysatay waxay tiri caawa sheekhu wuxuu sheegayo ayaan ku dhaqmaya wuxuu way tagtay gurigii bay diyaarisay uunsi bay ku shiday casho wanaagsan bay samaysay in ayadii bay isqurxisay miiskii bay cuntadii dhigtay wadaadkii baa guriga soo galay wadaadkii markaa wuu yara yaabay deemeeshii qiiqo sida ay soo haysto ayadii oo dhalaalaysa wuu iska aamusay cashadii buu cunay shaah baa loo keenay wuu iska fadhiistay hadda buu leeyahay heblaayo caawaya inoo imanaya saytari ciidinoo iman maysa adiga ayaan suka qurxiyay suulada ma ka dhabba way soo noqoto way xanaaqday waxay tii mariiban iska bixiyay waan iska seexday sheekhi bay tii nasiixadii aad nasiisay ma shaqaynin oo ninkayga imuu qadarin juhudadigan isgeliyay iyo dadaalkan isgeliyay iyo wixii muu qadarin wuxuu ku yiri sheekhu wuxuu kaaga muu baranin hadduu haga baran lahaa oo maalin walba isu qurxin lahayd ama wiigu bay isu qurxin lahayd dee wuu qadari lahaa laakiin wuxuu bartay
marka la isqurxiyo ee dahab la iska lulo ee dibnaha la caseeyo inay tahay mar la baxayo. marka waxaan leeyahay gabadha muslimadda ee weliba soomaaliyadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsato oo ay ka fogaato waxyaabahaas oo kale, risaaladii loo dhiibana inay fahamto.